النبي وحسين شرح وحيد عليه الصلاة والسلام إلهينا أعماش وحوتي علي عمل السمايو فرح عاد مؤمنين تقلبي وذكريسي باورتا هنتي هذا قرآنك يا أرضيدا يا فلنتاريسك كل وحيد فرح marka waxaan rajaynaynaa dhammaan runtii musaabaqadan shaadbiye la yiraahdo dhowr goorna waa sheegnay source income ay meel ka hesho malaha in cid loo bariyana runtii in badan baa la iska ilaaliyay maxaa yeelay mar haddii quraanka ilaahay la weyneynayo in barayo iyo tuugis uu galo waa lagala xishooda marka walaalkaas uu hadda sameeyay oo kale oo isagu ku dhiiraday in walaalaha kale ay ku dhiiranadaan inay quraanka weyneeyaan si ay u gaadhaan iyaguna weyneynta Ilaahay subhanahu wa ta'ala talabaad inaan ogaano walaalayaal nabigeena calaysana noo sheegay qofka muslimka sadaqada uu bixiyo xoolihiisa waxba kama dhinto hadda waa laga yaabaa inaan ku fikirno $40,000 oo kaash si loo bixiyo laakiin nabigu wuxuu inoo sheegay meeshii laga soo saaray Ilaahay buuxinay ka badan buuxinay in lagu dhiirado ugu dambeeyna waxaan Ilaahay ugu baraynaa subhanahu wa ta'ala Abdinaas Suufi iyo groupkiisa si gaar ah in Ilaahay xoolaha ay bixiyaan meel ka wanaagsan oo ka barka badan oo ka siiyo waxaan Ilaahay uga baryaynaa in aakhiro iyo adduunba uu ku anfaco waxaan Ilaahay uga baryaynaa isaga iyo cimrigiisa iyo amalkiisa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا